anigoo oo yaqaali maxamuud guhaad ikraan tahliil faarax hooyadeed waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto oo walaalaheena oo na garab taagan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah idin xifdiyo waxaan maanta shir jaraa'idkan aan u qabanay waxa waaye in maxaan ku iraahdaa boqofkeeni oo meeshii taagan yahay أنا هو يقال محمود جهاد يا أبو تهليل فارح إكران أبيهت أنا قاعد ضلني محن كل هاي وح مانت أو كيس كاس أنكو بدلنا إننا مجرته وح أنكجه بيسنا إننا مجرته كيس كي ماشي سيو تاجني أنا قاعد ضلني وح أنكو بدلنا إننا ملها ماشي وتاجني هاي دعودي سيدي وفرنت هاي وح محن كل هاي ومد صوماليين وشكي كجلايو أو إلين مامدي يمسيجي وآمسين ما جرتو لعجة قاتين يكن قاتين ما جرتو أنا جو حواي وحنتاجنا هاي دنبيلياشي قبل إني دباتي إن عدالة وجهلنا تلكاس نولس وتاجو عدالة تدين وجهلا أيجا محنكو إرادة نبكي أو وجستين أن كسل جارنا أو قد دبتجنا مال أو جسهرين مالكيس كنا سيدي وتاجنا تاسا وجانيسين ومد الصومالية ده ولا لهين ونجرب تاجن مدة كله هدي حل راديان هدي كتجان جد داري جد قابن ماشي وفولان أنا جوا دبت تاجنا ماله وجهرينا نمجرته لقويس يقبيل يقلا قف نجو جرب تاجن أما نجو مثلا مجرو أنا قاعد ضلني تطور تهليل فارح أحمد أنا جو أهقالي محمود جهاد واحد نجو مثلي كرم مجرو أنا قاعد تاجن أدير كذا تاجن حسن فارح أحمد مركا وحواي عدالة دي قبل إن ماشان أتاجنا إلا يوم هذا ما أنا كهرينه waxaan ahay ikraan tahliil faarax ee dadeed furtun faarax axmed maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabanay inaan ummadda islaamka u sheegno kiiskii shalay meeshuu noo taagnaa inuu maantana noo taagan yahay oo wax gorgortana aanan ka galaynin intii annaga aan cabanaynay aan dhibaatada sheeganaynayna dadka dowladda sheeganayaan wax noo damqadaba aan ka weynay waxaa jirta mar ra'iisul wasaaraha uu noo ballan qaaday kiiska ikraan inuu ilaahay dartiis iyo hortiis wax uga qabanayo سان أسوقينا نكى مانتا نكى من وين مسؤوله أو إلى هرتيس نوجود دارتي سان أسوقينا كيس إنه إحنا نوجا قبتنا هذا ما شعرت سوي استاجي مركب حن مد الإسلام كأشيء جينا يسوع معرضي شالنا لدم قطعي إن كيس كاس واحد إحنا نوجا قبته أنا ودنا كاس جديد سكويني محكمة دي عشان الدعوة وجود بالسنين وحش أكتر الدعوة إني نقاضي كرن أقبضها هي استدرتت وأقبضها هرتاجينا إنه ولي بالدعوة داس إنا بارين marka anagu ma garanayna xeer ilaalinta warka meesha ay ka keentay ayada garanaysa maxkamadda aan dacwada u gudbinay ma ayna qaadin dacwada sida ay noo sheegeen marka insha Allah cadaalad horta ilaahay agtiisa ay taala ilaahay agtiisa aan ka sugeynaa laakiin waxaad ogaanaysaan inaan anaga wax diyaan ikraan ka qaadanaynin aan horena uga qaadanin aan haddana ka qaadanaynin oo meesha aan shalay aan taagnayn aan ka taaganahay madaxweyne farmaajo raggii ikraan lagu tabaayay inuu xil ku wada taxo ayaga dhan kulay xil ma celinaayo xasaanadu xil ma celiso حقنا إله أم بقولي أهمالهم بإله نوصل دلاعين دونا معين حقنا قبل إن نلاقي جيرو حين قطنا مع الأم بنكوه لدونا إن شاء الله مركا إن شاء الله أنت أصلا مدو شيءنا أدي إله إدمو رئيس وزراء يمدحوينها يعد قلب الدولة داس الشيء قطنا عد إن هل معلن إن مادم قد نحن نوقفنا وأيدي عدينينا وإحنا لا شيء إنه هاي بين أم بهدي وحنا نلقو قنعناي مركا إن شاء الله عدالة إله كسبينا waxaan nahay dulmanayaal xaqoodii la duusiyay raggii da'yarteena duufsaday darajada xilba darbi looga sii dhigay daa'imo ilaahow xaq ma duusihiyo cadaaladana deeqsi bismillaahir rahmaanir rahiim jawaab celin ku saabsan go'aan baariseedka xeeraaliya buula kamay uu ka aqriyay TV-ga afka dawladda ku hadla markii taariikhda ay ahayd 22ka bishii 11aad sanadkan ay ku jiraan 2021 qoyska muwaadin ikraan tahliil faarax waxay halkan uga jawaabayaan war xaqiiqada ka fog oo ka soo baxay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida 22 bishii November sanadkan 2021 kaasoo ciwaankiisu ahaa baaris hordhac ah oo ku saabsanayd kiiska ikraan tahliil faarax warbixin baariseedka oo xeeraaliyaha buulakamay ka sheegay warbaahinta waxay khilaafsan tahay habraacyada loo maro baarista faldambiyeedyada muwaadin ikraan tahliil faarax waxaa gurigeeda oo ku yaala xarunta hay'adda niisa dhexdeeda ka qaaday baabuur uu leeyahay eedeysane
kulanajis habeenkii ay taariikhdu ahayd 26 bisha Juun 2021 markaas ayaana cid ugu wardambeysay waxaa xusid mudan in bartamihii bishii July hooyo qaali maxamuud guhaad oo garabkayga midig fadhida iyo xubno qoyska ka mid ah ay kulan la yeesheen eedeysane Fahad Yaasiin oo xilligaas ahaa agaasimaha hay'adda NISA waxaana uu qabsaday muddo 2 maalin ah 2 maalin gudaheed in uu gabadha ku keeni doono taas oo cadeyn u ah in Ikraan ay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA taariikhdu markay ahayd 24 bishii July 2021 hooyo qaali maxamuud guhaad ayaa dacwad ay u gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 7 bishii 9 September 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay qabatay gal dacwadeed ay gudbiyeen qoyska reer Tahliil Faarax kaasoo eedeysanayaal ay ka ahaayeen dadka kala ah 1 Fahad Yaasiin Daahir 2 Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo ku magac dheer Yaasiin Farey 3 Cabdullaahi Kulan oo loo yaqaano Kulanajis 4 Cabdiqani Dhiirane oo loo yaqaano Wadnaqabad taariikhdu markay ahayd 2 bishii September sanadka 2021 waxay warbaahinta ku hadashay afka dawladda lagu baahiyay qoraal ka soo baxay hay'adda NISA oo cinwaan looga dhigay tacsi kaasoo NISA ay ku sheegtay in Ikraan Tahliil ay dileen ururka Al-Shabaab hase ahaatee wax ka yar 24 saac ayay Al-Shabaab ku beeniyeen ku lug lahaanshaha kiiska xeer ilaalintu waxay si cad ugu sheegeen qoyska iyo qareenkaba inaysan u suurtoobin baarista kiiska sabab la xiriira in saraakiisha NISA ee eedeysanayaasha ka ah ay isurtaag ku sameeyeen baaristii socotay iyaga oo cadeeyay in xaaladda taageeri darteed aysan saamaxayn in baarista la sii wado waxaa nasiib darro ah in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo horey u ballan qaaday in kiiskan si dhab ah loo baari doono qoyskan ay heli doonaan cadaalad in uu tuhmanayaashii NISA ee loo haystay kiiskan inuu iyaga gacanta u geliyay isla kiiskii ay eedeysanayaasha ka ahaayeen sida ku cad bayaanka uu bixiyay ra'iisul wasaaraha 26 Oktoobar 2021 mar uu booqday taliska hay'adda NISA taas oo ay daba socotay warqad ka soo baxday NISA 3 bishii 11 waa November sanadkan 2021 oo uu qoray eedeysane Yaasiin Farey oo uu u diray xeeraaliye buulakamay laftiisa kuna sheegtay in Yaasiin Farey uu wareejiyay galbaariseed oo isagu isku soo baaray haddaba qoyska Ikraan Tahliil ma aqbalin warbixinta uu shaaciyay xeeraaliye buulakamay mana ahan mid sharciga waafaqsan xeeraaliyaha dambi kama baabi'in karo cid dambi leh mana laha awood uu ku xiro kiis ka furan maxkamad sharci ah maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay noo cadaysay in dacwadda Ikraan Tahliil aan weli la qaadin sidaas darteedna kiiska weli wuxuu ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan xog ogaal ku haynaa in xeer ilaaliye buulakamay uu hadlay kadib markii uu eedeysanay Yaasiin Farey baabuurkiisa ku qaaday kuna geeyay xarunta NISA kadibna muuqaal looga dhex duubay xarunta NISA isla maalinkii 21 November ee uu hadlay xeer ilaaliyaha muuqaalkaas oo laga sii daayay warbaahinta afka dawladda ku hadasha sida la wada og yahayna waxa ujeedku ahaa in loo gogol xaaro kursiga xildhibaannimo ee uu eedeysanay Yaasiin Farey oo maalin kadib ugu safray magaalada Dhuusamareeb tiirarka dawladnimada waxaa saldhig u ah cadaaladda haddii cadaaladdu ay waayaan dadweynaha waxay ku qasbanaan doonaan inay gacmahooda ku raadsadaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin xaq dadkii lahaa ay daba joogaan marna ma lumo qoyska Ikraan Tahliil waxaa ka go'an cadaalad u helidda kiiskan wax kasta iyo waqti kasta oo ay ku qaadato codka Soomaalida TV waa channel u hadla dadka aan codka lahayn u baahiye baahiyahooda waana bilaa shuruude fadlan si aad noogu soo biirto subscribe dhaho nalana wadaag fikradahaaga noona sheeg inaad naga heshay in kale oo like saar